الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أرداء وإن السلام يا سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورمضان كريم. هل كان وحن إن شاء الله تعالى قلنا الدرس الأخير من الكتاب وفي نفس الوقت الدرس الأخير من النحو وأفعال المدح والدمية عشر في جدا بيجي منهج كلام جدا بيجي وأفعال المدح والدمية نحوها قيبته جدا بيساها أفعال المدح والدمي كلمة مدحي وحويه وأمان دمنا ومحي ودليل ويان marka ficilada jira sideedaba loo isticmaalo madxi oo amaantiya damina waa maxay wadaleeshi loo isticmaali jiraa ficiladaasi waxay leeyihiin xeer naxwo oo ka duwan ficilada kale caadiga ka duwan bay leedahay tusaale waxaan soo qaadanaa ficilada nicma iyo beesa insha Allah marka waxaanu doonaynaa bal ahdaafta casharka inuu ka leenahay inaan isla sheegno hadhow toona casharka inaan isla gudbino isla meel gaarna aan doonano waxaanu ka yeelan doonaa saddex xaraf aynu ka yeelan doonaa casharka macrifatu afcaal madxi wa dami afcaal madxi wa dami inaan isla garanno iyo macrifatu qawaacid icraabiha habka qawaacidka loo icraabo iyo macrifati الفاعل منها يفاعل كي قصي توصل نسكولا قرانو فعلها مدحيقا iyo damiga nicma iyo bi'sa kamida nicma waxay leeyihiin ficil maadi oo kaliya ay leeyihiin mudaaricna male waxa jeedaa amarna male marka waa ficil jaamida تصالح توصل طبعا والخنم مجموعة الكوبادة ألف هو أفعال المدح مجموعة لبعض بعضنا هو أفعال ذنبي ويان نعمة تنظيم الإرشاد القومي مثال ثاني نعم العضو الجماعة من يحرص على حرية الرأي مثال ثالث نعم الخلق الإيثار وإنكار الذات 4 نعم ما يعتنقه الإنسان الإسلام هنسلاقنا هذا فعل كالنعمة واحد نروى فعل جامد بمعنى كان كدغنتahay ليس له مضارع وليس له امر وانما هو فعل ماضي ما لها مضارع ما لها امر waa sida uu noqonaya nicma muhanaya ficilku laakiin markuu aanu ficil musannaf iyo jaamid ahayn maadi buu leeyahay mudaaric buu leeyahay amar buu leeyahay laakiin ficilka nicma waa ficil jaamida maxayna ka dhigantay macnihiisa nicma waxa ugu wanaagsan at-tandiim urur الإرشاد هنونينتا القومية أمضى فعل أوركا كشقية هنونينتي هجاجينتا أمضى أوركا كشقية هي أور وقفي عن بود هذا نعمة وقفي عوين بئسنا وحين أركض طنا وقفي ويان وأقصى بيكوتها فعل كنعمة فاعل كيسي حالة قادا إنه نقطة مقعد ظاهر كه المحل بالكسا الك عن علامة طول التنظيم يوم نقطة اسمها فاعل كيسي magac daahira laakiin magac kale ku lamaano cudwul jamaacati oo kale uu noqonayaa mudaaf iyo mudaaf ilayhi buu noqonayaa iyo inuu noqdo faacilkiisi inuu qarsoon yahayba oo inuu noqdo damiir mudmara sida tusaale afraad nicma khuluqan faacilku waa maxay waa damiir mustatir taqdiruhu huwa oo halka loo qadarayo إيما إنه فاعل كالنقضة ماذا نقضة نعم ما يعتنقه وماذا نقضة مركا فاعل كان فعل كبئسم نقنيا لما النوع أي نقنيا إما أن يكون اسم ظاهر وإما أن يكون اسم مضمر إنه نقضة مقع مقضة يعني نقضة مقع قرصون إيما إنه ما نقضة حرف نقضة مركو اسم ظاهر كالنقضة وحنقنيا محل بألسة تنظيم أما اسم المضاف إلى اسم محل بأل مقع كل ما مقع كلا أو الوتا سدا عضو الجماعة وكان مكان عضو ومضاف الجماعة ومضاف إليه مركا واحد مضاف المضاف يكتسب المضاف إليه التعريف يكون مضاف نكرة ويكون مضاف إليه معرفة مضاف وحنا نقضى نكرة بلا أله مضاف إليه نروح نقضى معرفة الوسط وهي نعمة معناه محو نقنيا نعمة تنظيم أروح أو ونكسن الإرشاد القومي أروح كشقية هنونتي هجد أمضى نعمة وحو ونكسن عضو الجماعة حبن أرور من يحرص قفك إلى على حرية الرأي
saddex nicma waxa ugu fiican khuluqan dhaqan al-iithaar qofka oo naftiisa ka hura oo ummadda kale wax u hura waa inkaar iska diida addaad anaaniyada oo anaada diida nicma waxa ugu fiican ma yactaniquhu wuxuu rumeeyo al-insaan bini aadam al-islaam islaamka ugu fiican diin la aamino la iimaansado islaamka ugu fiican idan waxaan istawad meel dhignay faacilada ficilka nicma nicmana maxaa waa ficil jaamida wuxuuna noqonayaa ficil madxi buu noqonayaa waa ammaande nicma waxa ugu fiican nicma waxa ugu fiican nicma waxa ugu fiican nicma waxa ugu fiican afartii tusaalaba kii dambigiina cagsi buu ku yahay dhinac uu kala mid ficilka nicma oo faaciladiisii habka uu sameysmay waa isla nafs shay waxa kuluu kala mid yahay inuu ficilku jaamid yahay oo mudaaricna lahayn amarna lahayn kaliya laakiin wuxuu kaga duwan yahay xagga macnaha oo halkii nicma ugu wanaagsanahay bi'sana ugu xun weeyaan bi'sa waxa ugu xun al-fashal in la fashilmo fi tacliim waxbarashada oo lagu fashilmo bi'sa waxa ugu xun dulmu ummati ummadda in la dulmiyo al-ixtikaar ixtikaarka ugu xun ixtikaar macnaheedu waxa weeye waxyaaba qaarkood oo suuqyada inta wax laga ururiyo inta badeecadaha cayiman niman ganacsiyaashu way ogyihiin suuqyada dunida say wax kale yihiin shayba matalan suuqa ka go'aya waa la urursanaya xilligu qiimihiisu cirka galo iyo bulshadii qiimo qaaliya laga siinayaa oo lagu dhibaya hadda la doonana iibkaaba loo diidaya in laga iibiyo wixii bulshadu u baahantay ixtikaar macnaheedu waa nooca bi'sa waxa ugu xun sifo waxa ugu xun حب الذات قفكو نفتيسا جعلادا oo umada kale ilaabo wax walba aanu igu fiican yahay dhahda hada biisa markaa u fiirso faacilkeyga waa maxay al fashal ma faacilka markaa waa maxay waa al maxalli bi'al sidii nicmaba at-tandiim maxalli bi'al wahay al wadatay biisa waxa ugu xun dulmul ummad in la dulmiyo al ihtikar haye biisa faacilkeyga waa maxay waa dulmul ummad waa mudaaf ilayhi biisa sifo waxa ugu xun حب الذات qofka naftiisa jeclaa sifo maxay markaa فاعلكيga maxay noqonaysaa waa ضمير مستتر تقديره هي weey qaybta majmuucada jiimka majmuucadaasi jiimka waa ficilka xabada waa ficil madxi la markaan ku daray nafyiga ku daray la xabada dhanaano maxay ficil dambi buu noqonayaa marka xabadaasi iyada isku noqonaysa ficil madxi iyo ficil dambi sidii u kala duwaneed ma aha nicma iyo biisa u kala fogaayeen laakiin xabada markaan la ka horeeyo nafyi ama diidmo ku horeysiyo maxay noqonaysaa waxa noqonaysaa ficil dambi bay noqonaysaa markaan la nafyi ku horeysiyo ama diidmo ku horeysiyo xabada toos u dhaahdana ficil madxi bay noqonaysaa xabada wanaagsanaan lahayda tacaawun in iskaashadaan alquwa alcaamila awoodaha shaqaaluhu ama shaqaalaha in iscaawasadaan iskaashadaan fiicnaan lahayda la xabada xuma weeyaan xuma التفرق in la kala jajabo wala inqisaam la kala qaybsamo idan ficilkii xabada muxuu noqday ficil madxi iyo ficil dambi buu noqday sidoo inuu loo kala qaadan madxi waa maxay amaan dambina waa dhaliil xabada bila nafyi oo bila diidmihi waa madxi la xabada oo diidmo wadataana waa dambi ama dhaliil bay noqonaysaa faaciladoodii tacaawun waa maxay ومضاف إليه وتعاون ونكره ونرجنا القوة ومحي ومعرفة ومضاف إليه أحدهما يكون نكرة والآخر يكون معرفة بتقول إحنا نقول نكرة بتقول إحنا نقول معرفة نكرة واحد كده أنت بلال معرفة واحد كده أنت البوطة كذا بلا حبدا التفرق والانقسام مركل ليه التفرق محوطة البوطة هو محل بألوية وهي خلاصة 10 كده نسو أرنو 10 aad iskaga dhib yarna aadna u yar khulaasa 10 waxaan ardayno kala hayn ahdaafta 10 ama isla gundhiga 10 waxaan isticmaal dhignaan dooninay afcaal madxi wa dambi maxaa la yiraahdaa afcaal madxi dambi maxaa la yiraahdaa asalkoodu waa maxay waa hadafka labaad faacilada ku sameysmaya ee faacilada ay qaadanayaan waa sidee faacilada ku sameysmaan waa sidee intaasan kala hayn waayahay أفعال مدح والذنب وحل لها مدح وأمان ذنب نوع دليل وفعل جامد عندي جامد وحن كودنا وضع ماضي مضارع نمله أمرنا مله فاعل ذوذنا وحا صورة قال إن اسم ظاهر نقطة أما إن اسم مضمر نقطة اسم ظاهر ومقع مقطة أما مقع قرصون وين نقطة أما ما وين نقطة
ismu daahirka labaan u qaybino waxaan inuu maxalli beel noqdo magac isagoo al toos iska wato ama magac kale oo bilaa al ah oo magac alle loo tiiriyo wata ama inuu noqdo ismu mudmar ah oo qarsoonba oo damiir mudmar ah damiir mudmar oo qarsoonba ama inuu ma noqdo ayaan nidhi marka nicma waa ficil madxi bi'sana waa ficil dami xabada iyadu wax isku ahayd baan nidhi ficil madxi iyo ficil dami ba isku ahayd markaan ka horreysino laa ka horreysinana wuxuu noqonaya dami balka oo laa oo diidmaa markaan ka horreysin weyno laa in sii soo isticmaalana madxi buu ahaa layliga toosan u tagna haddaba waxaan jeedaa intaan layliga tagin qaacidada baynu soo urursan qaacidada waa intaan nidhi uun haynu sharaxan ku sheegnay un baan bal iyadoo khulaasa ururinayna tustacmal waxaa loo isticmaalaa nicma lilmadxi baa loo isticmaalaa bi'sana maxaa loo isticmaalaa lidami wahuma waxay ficlaan jaamidaan maxaan uga jeednaa horaan soo sheegnay laysa lahu mudaaric walaysa lahu amr baan nidhi ficilkan waa ficilkaa maadigun buu weligiiba ahaanaya mudaarican male amarna male يجب في فاعل كل منها فاعلك waxa loo baahan yahay yakuna muqtarina bi al wa inuu al wato waa ismu daahirki oo mudaaf ila ism muqtarin bi al ama inuu magac kale oo al wata uu yahay أو ضمير مستتر أما وين ضمير مستتر بالنقطة دي ومقع قسم وين النقطة أو كلمة ما وين النقطة واحد يجي لي يوحى لام مخصوص بالمدح ومقع أمانة لو قارية التنظيم وكلام مخصوص بالمدح مخصوص بالدم بيسمونه شنو مقع دليش لو قارية ليه مقع توسك وحيجي بوسكونه فيعرب جملة واحد لو إعرابها كورسا مبتدأ خبر كيسنا جملة فعلية وياهي فعلك تستعمل حبذا وحا لو استعمال للمدح كالنعمة وكله ولا حبذا أنا محا لو استعمال للدم كبئس وكله وأسلوبها يتكون محوكك وميهي من فعل حبذا إيه هو وداه ويهي انتان بينكم جوجيننا إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته